madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi sare oo ka socda hay'adda nabadda iyo isdhexgalka bulshada ee dalka Yemen. Wafdigan ayaa madaxweynaha Soomaaliland ugu yimid sidii wanaagsaneed ee xukuumadda iyo shacabka Soomaaliland u soo dhaweeyeen qaxootigii dalka Yemen ee soo gaaray Soomaaliland. Waxayna madaxweynaha guddoonsiiyeen sharaf ay ugu magac dareen shahaadada nabadda iyo horumarka iyo iskaashiga dunida. Kulankan shahaadada lagu guddoonsiiyay madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ka dhacay qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaa ku muhirinayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Saad Ali Shire, safiirka Soomaaliland u jooga dalka Yemen Ali Maxamed Ahmed, hawaya gaarka ee madaxweynaha waftiga ka socda hay'adda Al-Mahabba ee dalka Yemen. Markuu kulankaas si soo dhamaaday waxa warbixin kooban warbaahinta siiyay safiirka Soomaaliland u jooga dalka Yemen Ambassador Ali Maxamed Ahmed wuxuu ka waramay sida wanaagsanay oo madaxweynaha Soomaaliland u qaabilay waftigan ka socda dalka Yemen. Wuxuu tilmaamay safiir Ali shahaadada ay guddoonsiiyeen madaxweynaha oo uga mahad celiyeen sidii wanaagsaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo dhaweysay barakacayaasha ka yimid dalka Yemen. Waxay yimaadeen halkan inay u mahad naqaan madaxweynaha sidii wanaagsaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ula dhaqantay dadka Yemeniinta ay nagu soo inoo yimid. Waxay siiyeen wax la yiraahdo dirac salaam wa mahabba ayay guddoonsiiyeen madaxweynaha. kolka aad iyo aad bay ula dhacsan yihiin sidii fiicneed aynu u qabanay dadkooda muddada ay halkan joogeen oo ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa aan dareemayn inay meel kale joogaan, inuu Sanca joogo, inuu Tacis joogo, inuu Cadan joogo, yani dalkoodii yimi ayay taasi ugu yimaadeen madaxweynaha inuu mahad naqaan. diracana ay guddoonsiiyaan kalgacaalka iyo maxabada iyo horumarka shucuubta dhexdooda. geesta kale gudoomiyaha hay'adda nabadda iyo horumarinta bulshada ee dalka Yemen waftiga hogaaminayay ayaa isaguna uga mahad celiyay madaxweynaha Soomaaliland qaabilaadda iyo shahaadada ay guddoonsiiyeen. sidoo kalena waxay aad ugu mahadnaqeen shacabka iyo xukuumadda, waxayna ka warameen xiriirka dheer ee ka dhaxeeya Soomaaliland iyo dalka Yemen. gudoomiyaha hay'adda nabadda iyo horumarinta bulshada ee dalka Yemen ayaa sidoo kale uga mahadnaqay taageerada xukuumadda Soomaaliland siiso jaariyadda Yemen, wuxuuna aad ugu amaanay nabadda, jacaylka iyo isdhexgalka bulshada Soomaaliland ay u hayso dalka Yemen. waxayna tilmaameen inay sii xoojin doonaan xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliland iyo dalka Yemen. قامت الرئيس على حسن الضيافة وحسن التواضع الذي تلقينا من فخامته، ونشكر حكومة صوماليلاند وشعب صوماليلاند على الحفاوة والكرم الذي تلقيناه. وليس بجديد على شعب صوماليلاند هذا الشيء، وإنما تربطنا علاقات كبيرة جدا من السابق، علاقة الأخوة، علاقة الأشقاء، علاقة الأسرة الواحدة ما بيننا وبين صوماليلاند. ونشكر ما تقدمه الحكومة صوماليلاند للجالية اليمنية، ونحن مؤسسة المحبة والسلام الاجتماعية والتنموية قدمنا إلى جمهورية صوماليلاند بلد المحبة والسلام لتقديم درع المحبة والسلام لفخامة الرئيس حفظه الله على جهوده ومواقفه الإنسانية، وخاصة مع اليمنيين ومع الجالية اليمنية في صوماليلاند.